allah ayaa ku manaystay wiil asaga oo jiro 60 sano oo waayeel wiilkiisii u horeeyay. waxa uu ka murkay sideed u barbaarin doontaa wiilkan, maxaas u dambeyn doonto, adigu waayeel ayaa tahay, xaaskaaguna waa waayeel. habeen baa waxaa da'ay roob zaa'id u badan. ninka deriskiisa ah ayaa waxaa ka dumay gurigii. ninkii ayuu kaalmo u soo doontay oo weydiistay. ninkii odayga ahaa lacag u keedsaneed ayuu haaf ninkii siiyey, haafna waa oo keedsaday. ninka jiiraanka oo dib u sii fiirinayay lacagta meesha lagu keediyey ayaa ku fakeray inta dambana inuu dhaco. wuxuu ku fakeray wiilka yarka ah inuu bannaanka u bixiyo oo roobka ah. markuu wiilka yari qayliyo ay maamada soo doonto u soo baxdo inay cuni ka celiso in uu guriga u daba maro, kadibna odayga uu dilo, waxaa hanti yaalana u qaato. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. in yar kadib waxa uu ku dhaqaaqay arrintii uu ku fakarayay. cunugii ayaa soo xaday oo waxa uu keenay bannaankii. hooyadii ilmaha dhashay ayaa maqashay ooyintiisii. saygeedii ayaa waxay ku tiraaday, cunugayga ma socon karo, maxaa bannaanka geeyey? waxaan u malaynayaa arrin cajiib ah ayaa jirto, nakeen cunuga bannaanka ka soo qaadanne. odaygii waa uu diiday, laakiin markii xaaskii mar kale ku soo celisay way israaceen oo waxay u baxeen bannaankii. tuuggiina waxa u soo dabamaray reerkii gurigii wixii oo yaalay inuu xado. reerkii waxay bannaanka ka soo qaadeen cunugoodii. markii soo noqdeen waxay arkeen gurigii oo dumay. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. odaygii waxa uu yidhaahday wax kale ma ahane, wiilkeennii waxaa soo bixiyey malaa'ig si ay nooga badbaadiso gurigan dumahayo. habeenkii waxay la baryeen nin deriskooda ah. waagii markuu baryey oo dadkii soo aadeen gurigii, waxaa ka dhacday arrin cajiib ah oo waxay arkeen ninkii deriskooda ahaa oo guriga ku dumay oo lacagtii wixii xadi lahaana gacanta ku haysto. nin shiiq oo deriska ka mid ayaa wuxuu yidhaahday, waxaad u fiisay gacan, asagana inuu ku khiyaano ayuu damcay, ilaahay ayaana halaagay. shiiqii waagaas wixii ka dambeeyey kama uu murkin cunugiisa waxa u dambeyn doono, oo wuxuu ogaaday ilaahay inuusan dayici doonin. wiilkiina wuxuu noqday nin shiiq ah oo qadiib ah oo caalin ah, dadkanu aad u jecel yihiin. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.